Dowladda Kenya ayaa ka hadashay baaqii dhawaan ay soo saareen Baarlamaanka Jaamacadda Carabta ee Dowladda Kenya loogu digay inay faraha kala baxdo badda Soomaaliya. War ka soo baxay Dowladda Kenya ayay ku sheegtay in Soomaaliya ay weerar diblomaasiyadeed ku soo qaaday Dowladda Kenya markii ay sheegashada biyaha Soomaaliya ay geysay Baarlamaanka Jaamacadda Carabta. Kenya ayaa intaas raacisay in dacwadda ay billowday Soomaaliya 2014 ayna geysay Maxkamadda ICJ haddana ay Baarlamaanka Carabta hordhigtay in arintaasi ay Dowladda Kenya ka qafiifiso. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale shalay loo doortay hoggaanka Kooxda Xiriirka Soomaaliya ee la socodka dhaqdhaqaaqa Burcad Badeedda Soomaalida. Dowladda Federaalka Soomaaliya weli wax waraa kama soo saarin go'aanka Dowladda Kenya lagu siiyay in muddo 2 sano ah ay ilaaliso biyaha Soomaaliya. Jaamacadda Carabta ayaa war ka soo baxay lagu sheegay in Dowladda Kenya loogu digayo in ay faraha kala baxdo gabi ahaanba biyaha Soomaaliya oo badda ay leedahay Soomaaliya balse ay muran ka gelisay Dowladda Kenya ugu baaqday in ay si degdeg ah arrimahaasi faraha kala baxdo haddii kale ay Jaamacadda Carabta arrimahaasi faraha la soo gali doonto.